الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, sida dareemayseen khudbaddeennu waxay ka warramaysay ama aynu maanta u taaganay inaynu ka hadallo raadka iyo dhibaatada ka dhalata macsiyada iyo dunuubta iyo gafafka aynu ilaahay ka galayno subxaanahu wa tacaala. waxa maanta aynu ogsoonnahay oo aan la dafiri karaynin dadku inay aad ugu dadaalaan caafimaadka jidhka, oo qofku haddii la yidhaahdo cudurka noocaasaba magaalada soo galay, bakteeriyadaasaa keenta, fayraskaasaa keena, wuxuu aad ugu dadaalaa qofku inuu caafimaadkiisana ilaashado, meesha cudurkaa lagu sheegana uu ka fogaado. haddii cudurkuu ku yimaadana caafimaadkiisa u degdego, cusbitaalka u cararo. kharash badan buu ku bixinayaa, isaga naftiisa, carruurtiisa, ehelkiisa wuxuu ku dadaalayaa inuu sixatal badan, caafimaadka jidhka helo ayuu ku dadaalayaa. waxaynu baraarujinaynaa walaalayaal oy tahay inaynu ogaanno intuu caafimaad u baahan yahay jidhku in ka badan ayay ruuxduna caafimaad u baahantay. ruuxda qofka oo aan noloshii dhabta ahayd, nolosha dhabta ah ee qofku uu leeyahay waa nolosha ruuxdiisa. marka siduu jidhku ruuxda ugu nool yahay ayaa ruuxduna ay ugu nooshahay diinta iyo cilmiga iyo cibaadada. marka waxaynu u baahannahay inay ruuxdeennu caafimaad qabto, oo sidaynu ugu dadaalayna caafimaadka jidhka si ka badan inaynu ugu dadaallo allahayna siiyaa caafimaadka ruuxda. waxa markaa laga maarmaana oo khudbaddeennan ay ka hadlaysaa sidii aynu shaybaadh ugu samayn lahayn ruuxdeenna, si aynu u garanno cudurrada haya, kadibna caafimaadka ilaahay aynu u weydiisanno. farmasiga loo cararee dawada laga qaataana waa kitaabka qur-aanka ah iyo diinta ilaahay. marka waxaynu eegaynaa bal cudurrada ka yimaada gafafka, dunuubta, macsiyada ilaahay laga gala subxaanahu wa tacaala. addoonku markuu ilaahay caasiyo, edabdarra tii u weynayd buu la yimi, waayo ilaahay buu ku gacansay idhuu ilaahayo waaday abuurtay, laakiin waan ku diiday. addoon yaroo daciifahoo miskiina ama ummad noocaa isula timidna ilaahay agtiisa way ka eedaysan yihin. waxay u taagan yihin waa ayaan darro iyo inkaaro iyo aafaad ku dhaca. marka raadka macsiyada mararka qaarkood qofkaa lagu arkaa, mararka qaarkood qoyskay ku dhacdaa, mararka qaarkood ummaddiiyo deegaanka lagu arkaa. waxaa ka mid ah inuu ka lumo shayga la yidhaahdo xifdiga iyo cilmigu. cilmigii qiimaha badnaa ee qalbiga nuurayay ee nolosha dhabta ahaa ayaa dadkii ka dhimanaya ama qofkii uu waayaya markuu caasi noqdo. cilmigu waa nuur, qalbi safaysan buu degaa. sida ku maqlaysay khudbadda imaamu shaafici, waxaa la hadlay sheekhiisii imaamu maalik. wuxuu uhi waxaan arkayaa inuu ilaahay xifdi iyo fahmo iyo nuurku siiyee macsiyada ka ilaali. gabayga dalabatulcilmi ay tiriyaana imaamu shaafici sheekhiisii wakiic uu kula hadlayana waxa uu ku muujiyey inuu ku waayay xifdigiisa ama kaga nuqsaamay aan idhaahdo macsiyo uu hal mar ama gef yar oo uu ku dhacay. waxay yidhaahdaan kutubaha qaarkood ruux dumara addinkeedu sidaa u eegayoo markaasaa xifdigiisa imaamu shaafici uu isdhimayoo markaasuu cawdayoo gabaygaa u tiriya sheekhiisii si uu irshaadaadkiiyo tilmaamii uga sii qaato. maxaad u malaynaysaa isha halkan taagan ama isheennu intee oo jeer bay xaaraan iyo macsiyo gef ku dhacaysa, ama afkeenna ay ka soo baxaysaa macsiyadaas, ama uurkeenna ay ku dhacaysa. waxaa ka mida raadka macsiyada alwaxsha, shayga loo yaqaano cidlowga ama qofkii oo qaloonaya. waa qofkii oo didsan, waa qofkii oo degaanshi ka maqan yahay. culamaau suluuk waxay leeyihiin qofku waxa uu yeelan karaa laba nololood: xayaatulmustawxishiin wa xayaatulmusta'nisiin. xayaatulmusta'nisiin waxa weeye dadka ilaahay uu heshanaya noloshooda fiiha asacaadatu waalraaxatu waatumaaniina.
وددقن حسلون فرحسن dadka ilaahay u heshanaya subxaanahu wa tacaala daacada leh ruuxdoodiyo ay caafimaad qabtay dhisanta waxaa jira xayaato kaloo loo yaqaano xayaatul mustawxishiin dadka nool ee adduunyada ku nool iyagoo cidlaysan reerkiisii buu la joogaa dalkiisii buu joogaa dunyadiisii iyo xoolihiisii buu haystaa laakiin wuu warwarayaa waanu cabsanayaa cidhiidhina wuu ku jiraa taasina waxay keeni kartaa intuu qaadan waa ku dhaco kow iskaga siiyo waa cudurka ugu badan ee gaalada hadda ku dhacaya dadka diinla'aanta caadaystay strasti qulubka cudurka ay yidhaahdaan waa u qaadan waa noloshii baa ka hor imanaysa marka waxaa ka mid tahay taasoo maanta loo leeyahay dhakhtar kuwa waxaa loo geeyaa cilmu nafsiga laakiin waxba kama sheegi karaan kiinina yaroo muhadi'aada buu siinayaa ma odhan karo qofkii macsiyada iska daa iyo dembigan iyo alla ka fogaanshaha ayaa kuugu wacan kulaylkan iyo deganaansho la'aanta iska daa ma odhan karo isagii baa ku jira dhakhtarkii markaa wuxuu odhanayaa waan kula talinayaa waxyaabo yaroo sidaa kiniinka xumad jabintoo kale abuu sheegaya ma siinaya waxaa ka mid ah raadka macaasida ee aynu ka eegayno nolosheenna iyo ummaddeenna inuu ku jirayo in kale shayga loo yaqaano qilatu tawfiiqi wa tacasuru lumuur in dadka ay ku yaraato waafajintu wixii wanaagsanaa iyo xikmaddii ayaa ku yaraanaysa dadka inay waafaqaan arrimahoodoo dhanna jiq baa ilaahay kaga dhigaya waa ilaahay baa farajka bixiya ilaahayna dadkii way diideenoo way ka soo hor jeedsadeen wax walba wuu ku qufulaya wuu ku xidhaya markuu qofku isidhaahdo cilmi samee cilmi baro ama horumar samee adduunyo wax walba ku soo oodmaya qofkii wuu cabanayaao wuxuu leeyahay ma garanayo meel la iga raacee laakiin wax waliba way igu adagi gabadhan isidhaahdo guurso way diiday ciddaan isidhaahdo u shaqe way eryayaan waxaan isidhaahdo waa bara maba fahmayo tacasur umuur musiibada keenta waa gefka iyo macsiyada marka qofku wuxuu u baahan inuu ilaahay u noqdo subxaanahu wa tacaala soomaalidu waxay idhahdaan doqontu way taahdaa laakiin meel laga raacay ma garanayso qofka doqonka ahi aadaasu hayaa wuu taahaya laakiin xanuunkiisii ma garanayo marka caasigu waa doqon garan la meesha laga raacay waxyaabaha macsiyada raadka iyo dhibaatada uu kaga tago qofka waxaa ka mid ah wahanulbadan jidhkiisu inuu noqdo mid tamar daran diin iyo dunya wuxuu qabsan karayaaba aanu jirinba alcajsu waalkasal tacbaannimada iyo wahsiga uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan gelayay kuwaasuu ilaahay u badinayaa markaasaa qofku waxba uu qabsan kari waayaya waayo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif qofka mu'minka ah ee xoogga badan ee quwadda badan buu ilaahay ka jecel yahay qofka mu'minka ee daciifka ah daciifnimadaas iyo quwaddaas dee waa tii ruuxda qofka ruuxdiisu ay quwad leedahay ee iimaankiisu uu qawi yahay ee cibaadadiisa iyo daacadiisu ay badan tahay alla yaqaanka ah haba dhuubnaado haba itaal yaraado muruqyadiisu ha yaraadeen laakiin gidaarkaasuu jeedhi karaya abubakar sidiiq radia allahu canhu kaana naxiifan waxaa nin dhuuban oo macawistu ka dhacay sida xadiidka macruuf ku ah haddana dee awooddiisii ummaddu ku badbaadiyey oo khayrka ugu horseeday marka dad badan oo tacbaansan oo danahooda fushan kari la diin iyo dunyaba halka laga haystaa waa caasinimada waa inay ogaadaan waxaa ka mid a raadka macsiyada xirmaanu risqi arsaaqadda oo dadka ku yaraata ama bulshada iyo deegaanka ilaahii arsaaqadda bixin jiray subxaanahu wa tacaala dadkii way diideen way caasiyeen way ku gacan saydheen kuma aqbalayna yidhaahdeen ilaahayna wuu ku yareeyey roobkiisii barakadii cirka iyo barakadii dhulka labadaba ilaahay wuu soo koobayoo wuu ku yareeyey markaasay ku warwareegayaanay leeyiin dabeecaddii baa sida noqotayoo qorraxdii baa fallaadhaheedii xijaabkii adduunyada jeexeenoo dabeecaddaynu ka shiraynaa waddamada waaweyn iyo gaalada intay isu yimaadaan waxa la odhanaya dabeecaddii baa laga shirayaa iyo bal sidii warshadaha looga yarayn lahaa iyo sidii qiiqan ku baxaya iyo wasakhowgan loo yarayn lahaa waayo raxmaadkiibaa isbeddelay wax soo saarkiibaa yaraaday min usus aliqtisaad alislaami dhaqaalaha islaamka marka laga warramayo sida loo soo noolaynayo waxa kow ka ah inay dadku yihiin dad alla yaqaana ilaahay baa wuxuuhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu bushaarooyinkaas iyo ballanqaadkaasuu ilaahay qaadaya marka arsaaqaddii meel aanad filayn bay ka imanaysaa
haddii addoomuhu ilaahay ay ku toosan yihiin ay ku hagaagsan yihiin marba marka macsiyadii sii badata ee agabkan wax lagu baahiyo loo isticmaalo ee adduunyadii fasaadka u isu baxe ee dadkii muslimiintaa iltisaamkii iyo dhaqankii wanaagsanaa ku yaraado waxaynaan arki jirin baa la arkaya oo kala duduwan oo yaab leh oo abaari iyo aafaadkii baa badanaya taasina wax jira weeye oo ballanqaadkii ilaahay addoommaha u ballanqaaday ayay waayayaan oo ahaa inuu markaa arsaaqadda u biiriyo u badiyo waxaa ka mida waxyaabaha raadka macaasidu ay leedahay maxqu barakati alcumr cimriga barakadiisu inay ka baaba'do cimrigu walaalayaal maaha badnaanta anigu 60 baan jiray iyo 80 baan jiray iyo 100 baan jiray iyo abidkayba meel lagu jabaan jiqil la weynaayo soo jiray iyo waxa maaha laakiin cimrigu waa barakada ka soo qaad qofkan 80 jir buu ahaa maba cibaadaysaninba qofkanina waa 20 jir oo 5 sano uu qaangaarka ahaa wuxuu ka faa'iideysanayay fadliga jamaca ee 27 darajo ah wuxuu ka faa'iideysanayay cibaadada la gudanayo ee ajrigeedu laban laaban wuxuu ka faa'iideysanayay laylatul qadriga oo cimrigiisu qofka hore u kacayo waxa laga yaabaa 5 sanadood inuu dee dhaafo kaasteedii 80 jirka ee isagoo cimri dheer ku faanaya idan markaa qadiyadu maaha badnaanta laakiin waa barakadana yaa bixiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna muxuu ku bixiyaa inuu addoonku yahay addoon ilaahay hoos taagan oo daaca leh oo rabbigiisa ka baqaya subxaanahu wa tacaala markaa qadiyadda barakada oo diinteennuna ay aad iyo aad u dhiirisay waxa lagu helaa oo lagu faa'iidaystaa oo laga qaataa daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala in rabbi la adeecayo qaalada ilaahay uu ka warraba wuxuu yidhi amwaatun ghayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun waa dad iska noolnool laakiin dhintay oo geriyeysan waxa laga helaa musiibada lagala kulmo waxa ka mida shayga la yidhaahdo caasinimada xirmaanu daaca qofka wixii u noolaayo inuu ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala way ku adkaanayaan cibaadadii baa dhadhan u yeelan waayeysa leanna waa mariid oo xanuunsanaya waxaynu ogsoonnahay qofku markuu buko cunadii macaanayd iyo sharaabkii macna uma sameeyo hurdadu macna uma samayso ma gamayo dawada ma qaadan karayo waxoo dhan wuu diidaya iga daaya buu leeyahay gaajadaydaas iyo qadoodigaygaasaan ku noolaanaya waa mariid marka sidaasoo kale uu yahay qofka caasiga ah oo cibaadada isagoo caajisa ayuu yaro dhaqdhaqaajinayaa wadwadayaa waxba uma faa'iidaynayso taasina markaa waxa keenay oo sabab u ah caasinimada uu ilaahay caasiyey subxaanahu wa tacaala marka qofku ilaahay caabudaya markuu alla u soo jeedo amarkii ilaahay qaatay xaaraantii iyo xumaantana daynaya cibaadada dawq iyo dhadhan buu ku hayaa masaajidka tegiddiisuu xiisaynaya inuu fadhiyaabuu xiisaynayaa xabsi ma dareemayo qur'aankaa u macaan salaatuleylkaa u macaan sadaqadaa u macaan wanaagga oo uu faro xumaantu ka dhidhiyo waxaasoo dhan waxaa ka mida raadka macsiyada libaasu dul qofkii ama ummaddii waxa ku habsanaya dulli baa ku habsanaya caama oo ummaddu miisaankii ay ku lahayd adduunyada ama dadka dhexdooda hoos buu dhacayaa dulli baa ku imanaya ama dadka dhexdooda qofku muuqaalkii uu ku lahaa malaha wuu madoobaanaya dadka qaarkood baa la yidhaha hebel wuu nuuraya qofna waxaa la yidhaha hebel madoobaad buu qabaa wuu sillan yahay wuxuunbaa dushiisa saaran waxaa saaranay dadka wanaagsan arkayaane laga arkaya waxa weeye waa raadka macsiyada ilaahay baa wuxuu yidhi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim man qofna way noqotaa ummadna way noqotaa qofku ilaahay dulleeyo yaa karaamaynaya ee maamuusaya muslimiinta maanta waad arkaysaa caalamka aynu ku noolahay dadka inta faraha badan dulliga iyo dhibku uu haysto ee idaacadaha iyo tiifiyada iyo laga sheekaynayo laga baac mushtareenayo balaayooyinkooda ama mid cadow ku sameeya haata ama mid dhexdooda ha ahaato waa muslimiinta maxaa keenay markasta ilaahay ka durkaan dulligaa ku badanaya markasta ilaahay u dhowaadaan subxaanahu wa tacaala cisigoodaa kor u kacaya marka waa arrin u baahan runtii qaranka muslimiinta iyo qoyska iyo qofkuba inay dib u eegaan waxaanina haysta xaguu ka yimi waxaa ka mida raadka macaasida inay bahaa'imta iyo xayawaanka iyo xooluhu nacdalaan xoolaha iyo mayeedhadaa iyo ugaadhaas iyo way nacdalayaan qofka ama ummadda caasiga ee dunuubta iyo xaaraanta iyo xumaanta samaynaya way nacdalayaan li'annahu abaarta iyo cudurrada iyo dhibkoo dhammi macsiyada iyo dembiga dadkaa la joogay ka yimaadeen
إلا يقو مكلف معها حلم سارة حولها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إلهي با سبحانه وتعالى وحط المامية إركي يدول كويني ويان قفك وناكسن قفك عاصقانا أنو هيلا إن أرنتاسو أنو لكل مينين وحكم إذا وحيابها رات كحن معصية دي الدم بقوتتك وكوية شو انعدام الغيرة تدك إن لقوا يوحى الله يقانا هناسها أما مسيرك أما يلقفك حمان تديدو حمان تباك توضى لقوا ولاقيا قف ولي عادي بأوتو وحبايقا مقالين محايقا سارا ويسكر عافيا محان كدونيا محان هو يدينيا قفك مسلم كاي لكن إيمانكي سوحو سينيا ما حميلي كرايا حمانتا بلشديسي اهلكيسي ومديسا لغو سمينيو يا دينتيسا وكديديا وكدغالميا wuxuu u nool yahay wuxuu u noolaa oo mabdiisa in la taabtay buu ogyahay marka hadaad aragto dad qayrala oo aan hinaasa lahayn oo xumaantu caadi u tahay oo wanaagu aanu macna u sameynaynin waxa ku dhacay raadkii macsiyada iyo musiibadaas ku habsatay waxa kamida waynu soo koobkoobaynaa mid waliba sharax buu u baahan yahay mawaadiicda aynu ka hadlaynee raadka macsiyada waxa kamida zawaalu nicma wa nuzulu niqam nicmadii ilaahay meesha ka baxaysa balaayna way soo bedelaysa oo sideedaba nicmadu waa barwaaqo iyo baraare ilaahay u bixiyo waxa dabar u ah daacada la yiraahdo shukriga marka adoomu ilaahay u mahadnaqaan oo ogaadaan deeqda inuu isagu siiyay nicmadii way xidheen hadii ay ilaahay ku caasiyaan nicmadiisa oo ay ku kibraan oo dadka ku dulmiyaan oo dal iyo dadba ay ku fasahaadiyaan awoodii ilaahay uu siiyay oo nicmada shukrigeedii ay la iman waayaan waxa dhacaya inuu ilaahay ka qaado weydaariye subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid ilaahay baa wuxuu tilmaamaya hadii ma hadna ku yimaado tii horena way ku joogaysaa nicmada kororsiimana ilaahay wuu bixinaya ilaahay xoog waxba lagama qaado ilaahay la isuma xariifiyo ilaahay laguma kibra subhanahu wa ta'ala arrimaha adoomaha ilaahay kala hortaga araxdu ka jabiya marka wax badan aanu naqaanay oo adduunka ku naqaano barwaaqo ah oo dad fil cibaadi wal bilad daliya dad ku arki jirnay oo isbedelay taasa sabab u ah waxa kamida dhahabul haya qodobkii hore ka agdhowdahay xishoodku dadka ku yaraado ragiibu xishoodku ku yaraanaya dumarkiibu ku yaraanaya caruurtiibu ku yaraanaya madaxdiibu ku yaraanaya madaxdiiba halku qofku xaaraanta ka faani lahaa ee uu dulmiga ka faani lahaa ee uu sharafta ka baadi dooni lahaa dadka maxaad u qabatay horumar maxaad samaysay ummadaada maxaad ku kordhisay lagu xusi karaa wuxuu ku faanayaa intaasaan cunay intaasaan qaatay intaasaan ayaan meeleeyay waxaasaan ka kororsaday wixii ummadda dulmigiibu ku faanayaa dadku ka argoostu ku xadgudbay uu ku faanayaa taasina waa raadka macaasida ayaa ay ka mid tahay ee ummadda iyo dadka iyo dawladda lagu arki karo waxa kamida الطبع على القلب من ذاتك قلبي قوض الله الضبولة ماشي قفك بني آدم كي وكنه ليه قلبك سيدو النبي محمد الشيخ عليه الصلاة والسلام سيدا آيات آذو فربضان القرآن كي كور رميان قلبك قفك وحكنه ليه عبادة إيا قرآنك إيا دينتي إيا وحيك يكنه ليه حديثها قفك أي كو يرادان قلبك سوى حرميان كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون markaasa wixii wanaagsan wuxuu la noqonayaa wax xun wixii xumina wuxuu la noqonayaa wax casri ah oo horumar ah oo ilbaxnimo ah wanaaga ayuu la noqonayaa sida daraadeed maanta arkaysa adduunyadu waxa loo tasfiiqinayaa loo sacabatuma qofku xumaanta caan kaga yahay ninbaa wuxuu shirbaanu ka qayb galay waan Soomaalida kamida oo marka ay isugu yimaadeen dadka sharci yaqaanada iyo looyarada iyo waxa mid gaalada kamida ba istaago oo hadlo wuxuu leeyahay war caalamku maanta yaan lagu adkaynayn arrimaha xorriyad buu helay oo waxa la marayaa casri la soo taabtay dabada bani aadamka la soo taabtay intoo la socday ilbaxnimada halkaas ay gaadhay buu ninkaas ku leeyahay macnaheedu wuxuu ku faanayaa qowmuluudkii iyo raggii wax ka daya halkaas la marayaa buu leeyahay xorriyadii maanta sida qof waliba wuxuu xaq ugu leeyahay uu u sameyn karayo walaalayaal aad bay u badayn macaasidaasi maantana waxaynu ku arkaynaa dalkeena waxaynu ku arkaynaa dadkeena waxaynu ku arkaynaa deegaankeena iyo meeshaynu ku noolahay waxaynu ku arkaynaa nafteena ma inaynu taahnaawba waxa la yiraahdaa albukaau adaatu man la qudrata lahu oohinta iyo baroortu
waxa isticmaala qofka awood waayey ayuunbaa iska baroorto iska qayliya waynu taahaynaa waynu barooranaynaa waynu ooyaynaa laakiin waxaa loo baahan yahay isbeddel ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim sida ilaahay qur-aankiisa uu ku xusay isbeddel ilaahay ma siiya buu leeyahy ummadaha isbeddel horumar oo wanaagsan oo raaxa ma siiya ilaa iyagu xumaanta iska beddelaan marka taynu isku baraarujinaynaa maanta waxa weeye waxyaabahaasoo raada oo dhibaato ah waxaynu ku shaybaadhaynaa nafteenna dalkeenna deegaankeenna ummaddeenna qoyskeenna aynu ka eegaynaa ma ka jiraan mise kama jiraan haddaynu nadiif ka nahay falilaahi alxamd hadday laakiin waxaanay jiraan waa cudur inahayee caafimaadkiisiina waxa uu ku jiraa inaynu ilaahay toobadkeenaynu u soo noqonno oo toobadda aynu badinno towbaddii dhabta ahayd ee xaqiiqada ahayd ee nasuux ahayd ee waxiguu sheegay naftaydiiyo idinkaba taasaynu isku baraarujinaynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inagu anfaco waxaynu isu sheegayno اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة